joogtaa erga joogtaa marka waxaan weeye nasiib darrada waxa weeye Amazon ciidamada imka ay sameynayso waxay basically noqonayaan ciidamo reeray noqonaya beel qura u badnaanaya kuwa direeskii xiranaya dhulkii beeraha lahaa reerahoodii ayay marka ay u boobiyaan wad ogto dadku bariga xamar baa isku wadiibay reer xaweyntu way tima xamar marka abaarta ku dhacday gobolada dhexe waa laga soo guuray wad ogto xamar bay degeen xamar baa butaacday way butaacaysaa waxay isfidinaysaa marka waxa la isku leenayaa waxaan xasuustaa beber oo qoray Ali Professor Ali Mazuri 10 sano horteed oo yiri dagaalka Soomaaliya waxa weeye reer guuraagiyo reer beeraleyda dagaalamaya Professor Ali Mazuri berga macnaheedu ma sameeyeen laakiin hadda waxaan arkaa in step kale waa taas laakiin marka imka dawladdan aan leedahay in ra'iisul wasaare bedeshay nin ra'iisul wasaaraha ayo ka soo jeeday beelheblaayo ku badama jirto laakiin basically wixii state building ayaa khatar ku jirta dagaalka magaalada saayid dhulka la kala sheeganaya ee xoog lagu sheekaleeshanayo oo propaganda lagu sheegay inaga xitaa naga maqna oo wada aragto dawlad gobolka Garowe Sooliya Sanaag ay sheegtaan Sooliya Sanaag bay sheegtaan oo ogtahay sida loo kala degayaan dhulkaas aan beel qori deganeen ay haddana ay sheegtay dhulka lagu soo dispute marka way nagu soo socdaa inaga qorida dagaalka ay magaalada dhul boobki oo taleex baa aragto waxa ka socda waxa ka socda magaalada dhahar in dhul aan lahayn laga campaign garanaya baran iyo la joogo arkaysa marka Soomaaliya waxay galaysaa face ki berigi reermigi biyaha yeel isku jiri jiray iyo magaalada iyo caleen dooga hadda waxa la isku jiriyaa dhul boob marka inaga qudheenu inaan diyaar garowna weeye hadda labada gobol u waaweynaa oo Maxamed Siyaad u qoondeeyay inuu dad beelaha wadagan beel ku sheego oo degmooyin badan siiyay degmooyin badan siiyay beelana aanu degmo qorba siinin ya say u muuqdaan in beesha soo badan tahay waa taa keentay inuu Faroola yiraaho amba Cabdilaahi Yuusuf yiraaho amba kii ka yiraaho dhulka isir baan u degnaa oo dadka kale degan laga yaabaa inay isleeyihiin ma kaga badan yihiin gobolada qaarkood aanay magaalada saay keersiinin laana shan degmaan ku leenahay beesha degmo qora ku leedahay laakiin hadda tuulooyinka laga dhigay degmooyin hadda tuulooyinka degmo laga dhigay way ka degmooyin badnaan lahayn Maxamed Siyaad wuxuu sameeyay 10 gobol buu sameeyay bentii markuu dal qabsaday beelaanu hal gobol qoraseen wuxuu sameeyay 76 degmo sameeyay inaga beeshina dhaxo kale hal degmo uma sameyn Soomaaliland marka waxa weeye siyaasadii Maxamed Siyaad bare ayaa hadda la doonay in dusha laga saaro lagu tagaalmay marka ra'iisul wasaare la sameeyay wax macno keenaya ma jirto hadii aan dadku nabad ku heshiino qofka xaqiis aan la soo cadaalad aan iman wax macno keenay ma jiro Amazon waxaan leenahay ciidamada Djibouti jooga Hiiraan waxaan leenahay in laga daayo tababarkan la siinayo ciidamada leeyahay ciidamada Somali National Army ma beela u badayeen kuwa Hiiraan laga qoray beel bay u badnaanayaan kuwa laga qoray xamar beel bay u badnaanayaan waa taa keentay inta ciidamadii xamar joogay inay number konton ku duulaan inta reer ahaan isku socdaan waa taa keentay inay ku Hiiraan joogay inta beel ahaan isku socdaan inay dadka beeraleyda ahaa ee boobaan oo intaas guri ka baabiya oo dhirta jarjaraan oo masaajidka gubaan yani waxa ka dhacay jiina soo ka kacday meesha ka xalan la yiraahdo marka waxa weeye meeshan Soomaaliya la yiraahdo waa magac dad baa abuuranaya gaala inta magacan sameysay kumeel gaarku ay ka baxday ku leeyihiin kama bixin wax iska bedelay ma jiro dana ay leeyihiin shidaalka imka Ingiriis qaato kale bado kale ayaa kama waxyaal loo magacaabay marka aniga waxay la tahay halkaas khayr kama soo jeedo dagaal cusub baa galay inaguna waxa weeye inaynu diyaar garownaa oo Sooliya Sanaag la sheegayo inaan horta Sooliya Sanaag Garowe lahayn oo tadul Soomaaliland oo xuduudeena international waa inaan muujinaa oo in xuduudeeda tagnaa oo in maamulka geynaa oo in dadkeena intaas soo sanayna sugayeen hadda in maalin kasta wad soo hadlayaan reer badan waxay war ma dhulka ka baxdeen ma xaad ku dhacay dadkeena taageersana Faroola Brita imanaya taleex baa dadkii lagu laayay shacbiga lagu laayay buu hoole ayaa socota qoladayna khaatimo joogta yani dawladnimadu waxay ka kootahay war xuduud ma haysataa dad ma haysataa way state hoolka marka laga hadlayo marka wax halkeen waxaan sheegan iyo amalkeen iyo ficilkeen isma leh marka aynu eegneemka madaxweynayaashii ugu dambeeyay Soomaaliya ka taliya markasta khilaafka ugu badan wuxuu dhexmaray ra'iisul wasaaraha
وانا شرط مركز رئيس الوزراء اللي بدون رئيس الوزراء كله كان خلاف كاسم محوك كعين تقول waxa weeye horta aad kaba waxa wadan hogaamin kara xusbi dad midaysan oo xusbi ku midoobay oo agenda leh midaysan u sameyn kara military koox qabsatay junta qabsatayna si maxamed saab barana oo kuma la uu qabsan kara laakiin dad la soo ururiyay oo hore isku dilay oo kala wada agenda yaala oo la yiraahdo mid oo madaxweyne noqon raiisul wasaare wiligood heshiin mayaan waa hangoolka faraara leh powerka ba faraara yeeshay baraga faraara yeeshay inaga markii boorama la yimi leeydi aan Soomaaliland maxay system ka qaadata saddex system baa la keenay qolo waxay ilaahay hala garo madaxweyne wareega shan madaxweyne wareega oo midka waqti haya iyo marka beela ka fikiraya qolo waxay ilaahay hala keenay raiisul wasaare madaxweyne raiisul wasaare qolo waxay keenay madaxweyne ku xigeen waxa ugu fiicnaaday madaxweyne ku marka waxa weeye powerka meel qoru maraya madaxweynaha iyo raiisul wasaaruhu luqunta isku geliyahay hada nabadgelyada markaan ku joogno kuma joognin marka waxa weeye powerkii bay qaybiyeen dastuurkoodu amba charter ku shaqo amba guuta ka buuxa ma la garan maayo halka ku socdo powerka uu leeyahay may kala qayxin midalan wadama jira la hybrid system يعني system لا أو إسكت شراء parliamentary system iyo presidential system ka waxa kamid ah Faransiiska Finland madaxweynaha ra'iisul wasaare waliye laakiin Bristol ka qayaxay madaxweynuhu wuxuu ka shaqo leeyahay wixii siyaasadda arrimaha dibadda iyo difaaca wixii kale ra'iisul wasaaraha ayaa kula dowladiska maamulka nabadgelyada dhaqaalaha marka marmar bay ra'iisul wasaaruhuna ka yimaadaa xusbi gaar ah madaxweyne xusbi gaar ah cohabitation baa la yiraahdaa wada noolaasho marka imka qoladani waa wada noolaasho xusbi kama qabaa'il ba ka yimaadeen ra'iisul wasaaruna wuxuu ka yimid beel buu ka yimi madaxweynuhu beel buu ka yimi ra'iisul baarlamaanka beel buu ka yimi marka waa cohabitationkii oo ku fadhiya beelo marka waxay in laakiin dastuur kala cadeeya walaal adu madaxweynuhu fiidkaaga waa caynka marka halkaas oo ka imanaya madaxweynaha baa soo jibiyay imka wuxuu aagtay in madaxweynuhu uu ku soo shaqadii ra'iisul wasaaraha inuu ka boobay oo dawladii aanu u ogolayn dadkiisa soo magacaabo ya muddooyinka ugu dambeysay dalka waxaa si xoog uga taagnaa in dood qaran ay asxaabta mucaaradka ay kala wareegtay madasha wadatashiga toosinta qaranka Soomaaliland doodii qaranaad waddanka ku dambeysay horta waa su'aal fiican oo waramaya waxa weeye horta doodan qaran waxaan shacabka Soomaaliya u sheegaya dooda qaran sida uu sheegay gudoomiyaha guurti maaha shirbeeleed gudoomiyaha guurti wada jiray anna waxaan wadan jiray habka siyaasadda asxaabta badan laba asaasan ku kala caamasanahay waxaan waa dood qaran oo arrimaha inoo taagan oo tan magan kaaliya ka mid tahay dalkeena su'aalku mar qaybsan yahay siyaasadda dibadda tahay doorashooyinkeena yaa laga doodaya qodobo muhiim ah yaa weeye waana dhacaysaa hadii la ilaa ilaahay ka way dhacaysaa dawladda hadda wada hadal oo furno doon inaanu saska ka saarno oo galiyay gudoomiyaha guurtiisa iyo dad wax ma garato telefoon la horreeyay way dhacaysaa bidnaahi kariin danteena weeye aniga Faysal Ali Waraabe wax Soomaaliland dhibaato u keenaya taariikhna kuma lahayn taariikhda waan ku yeeshay dooni maayo laakiin anu waddankeenu arkay wax ka xun dhanka ma qabsan karayo oran maayo xanjeer baa meel ku saban wax doon iska socod aniga xanjeerida wata Soomaaliland interest-kayga taas good interest gaar ma leeyahay marka waxa weeye arrintan waa danteena dawladda hadda wada hadal u furnay wada hadal socda waan indicate gareynaa war maxaa ka baqanaysaa aan war waxaan hagaajisano maxaa ku jaban ana qanciya haddaan leedihiin waan wada tashano fidma weeye deena taabsiya haddaan leeyahay wada tashano dan inoomaha deena taabsiya laakiin waxa weeye way dhacaysaa haddii ilaahay yiraaho haddii dawladda ka soo qayb gashaan wanaag waan wada dhannahay haddii kale waan qabanana inuu diid kara ma jirto doodan marka aad qabataan qodobba ka soo baxaya jandariyan halkeed geenaysaa marka jandariyashaas waa talooyin ka soo baxaya recommendations baarlamaankeena waa inuu caynka oo kaada guurtideena waa inuu caynka oo noqotaan dastuurkeena waa in halkaas laga hagaajiyaa xageed geenaysaa markaan xukuumaddan kala soo waa soo bax haddii dawladda sameyn weydo dawladda daba sameyn doonta markaan labada xusbi sameynay bidnaahi kariin labada xusbi haday nagu ekaato waxaan soo saarnay waxay noqon doontaa waxaan ku campaign gareyn doonaa haweenka waxaan siin doonaa inta
gabooyaa intaasaan siin doonaa waa waxa ka soo baxay meesha siyaasad iyo dibadda caynkaasay noqon doontaa Soomaaliya saasaan ula hadli doonaa guurteedu saas u ekaan doontaa power sharinka beelaha Somaliland ceebtayna haysata wixii oo dhan baynu beeshi dhex qaadatay oo maanta dadka saa inoo daawanaya dadkii aynu ku qasabneen niri kaale waa khayr baan idin wadnaaye maxaa noo wadaan goonistaagayna noo wadnaa Soomaaliya danteena kuma jirto burco ay nala qaatay niri waxaan qaadayna inaan cadaalad ku xukuno inaan dalkeena gaar u qaadano iyo inaynu dawlad loo wada dhan yeelano saddex qodob baa burco lagu qaatay saddex qodob bay jabin oo is jabiyay dawladda hadda jirta dawladda hadda jabisay oo beelana ku rartay in markaad wasaaradihii waaweyn oo dhan qaadataan markaad baarlamaanka qaadato wakiilka markaad guurtidii qaadatid markaad ciidamadii oo qaadatid maxay marka aad biyo geynin marka aad wada geynin marka aad isku geynin beelihii Soomaaliland kula qaatay maxay ku raacaan oo kala beelatina adduunka maalka beelayahay bal waxay dhaxal ku raacday sheeg waxay seelac ku raacday sheeg maxay haystaan darajada waad ka qadisay horumar maad geyn ya hadalkiina waa burcay hargeysa inta ceergaaba ma gaarsana siyaasiga Soomaaliland ama liidarki inta degantiin ceergaaba iyo ceelow fiiniyo ma jirto marka waxa weeye waxaan isku socon meesha Soomaaliland wada yar baan sidii boqorada maqli jiray boqorada Sacuudiga ayaa kolba inta reer u tagaan yiraahdo reer hebel waxaan isku deeqnay $50,000 $100,000 haddayna waxaan soconaaba halkaas reer yar oo wada yar iska qafanayba inta lacag loo qaado ayuu oranaya wasiir waxaan wadadiina ku daray 5 kilomitir sidii soo jeebkiisa boqoradu iyaga leh wadama boqortooyinka xoolaha iyaga leh dalka iyaga leh shidaalka iyaga leh haddana waxaad moodaa dawladda inuu xisaabsan waxaan dadka Soomaaliland ay leeyihiin cashuurtoodii ama caawinayna iyagu leeyihiin baad moodaa salax baa la tagaya ceelafeen baa waxa tagaya bahasha ood weyn la tagaya dowlad baa la tagaya waxaan idinku deeqnay waxa waa waajibkoodii waa dawladdeena qabto wadooyinka dhistaa weyn lana bari maayo ma hayo jeebka siisay ma hayo soo maxaafidiin ma tiidin shirta mid baa la hadlayay intan joogta meesha waa maxaafid wadada bahashan salax wadadeed يعني ما ساس ولا له شانين بقرطويد بيلا habkiiba ka socda halkan dawladnimadu way suushay nidaamkii dawladnimadu uu suulay nidaam qabiil baa socda waxa lagu leeyahay Saleeman baa ka talinaya magaranaysa ay ka talinaya kulmiyay arintiisi Saleeman baa ka talinaya magaranaysa wada hadalada war Saleeman waxa ku soo gal Saleeman tiisi baa baabaday guurtidii baa baabaday 6 bilood bas ka maqlaanaya 8 bilood bas ka maqlaanaya sharciga oo yahay maqlaynta waxa ugu jira marka waxa weeye sidaan imaka nahay سينك ما هدين ما أنت لو تقاط كنا جتشوف سيدي هدوي نجتشوف لها ويك ونفكر ليه ما لو تقاط قاتل الحين موت تصل غرب الفكرية وأنا طب بلاد عنش راح ونفكر ليه سين ما أنت نهاي دولد كل قرنين مدن قدومي تلوين كان هذا ممكن هذا الشيء سوي يو حردان كلا دون درك وكسوين يعني أنت أنا اللي بتجي بالضاد قرن على الله فريسان ما يسكت دينا المدحونها سومان الله فريستان وضو شيكتان أو أنت مقنعسان وضياش السياسيين كان ما ضيش الله بحي ليك حسن عيسى جامع محمد حاشي دقويني مقانا ساي حسن كوري انتو ما حسن عيسى لك شابه سيراي وفوتين ورقي صو صاري ورقي سوى هالجميل ورا انو ساركمو او اينو كو هذا الله واحد تلوين بانو هايناي ayaa yararka uu sheegay Cabdiraxmaan qalqaaliga ay u diideen is arkaan ninka ilaa lagu leeyay ilaa bishii May ilaa ma ku dhaariyaan leeyahay shacabka Soomaaliya ay odayaasha leeyahay war taran hayna is aragno ee arki leeyahay ka war anigu gudoomiye xusbaan hay sina wada shaqeynay waan soo wada halganay udub wada ridnay ma arki karo waa in yar ka soo qaata fasax أنا يار كسبت قارن معي أنا يار أنا يار I will never do it وأنا أقول أنا يار وقتك حكومة أنا كل شيء مدن قدومي حكومة ديره جامني مدن الداير